جمهورية الصوماليلاند waxay ka digaysaa faragelinta qaawan ee cadaawadu ku dheehan tahay ee ay maamul goboleedka Puntland oo ka tirsan dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya ay ka wadaan xuduudaha bari ee Somaliland iyadoo Puntland bilowday deegaameyn ay ka sameynayso tuulada buuro wadal oo ka tirsan gobolka Sool kana mid ah ciidda dhuleedka Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay xaq u leedahay difaacidda ciideeda iyo xuduudaheeda daruuf kasta oo jirta faraha kama laabanayso ilaalinta madaxbannaanideeda iyo jiritaanka dhuleed sidaa darteed waxay ugu baaqaysaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya inuu ciidda Somaliland si degdeg ah ugala baxo ciidamada iyo dadka rayidka ah ee lagu soo daldalayo tuulada buuro wada isla markaana ay dib u leeqaan hankooda ku saabsan mulkiga buqcad ka tirsan dhulka Jamhuuriyadda Somaliland oo ku caan baxday nabad ku wada noolaanshaha dalalka gobolka waxay u cadeynaysaa ururada caalamiga ah ee sida qaramada midowday midowga Afrika jaamacad al-Arab iyo urur goboleedka IGAD gardarrada qaawan ee Puntland Soomaaliya ku soo qaaday Jamhuuriyadda Somaliland waxaana ay ku wargelinaysaa beesha caalamka in wixii dhibaato halkaa ka yimaada ay qaadi doonaan maamul goboleedka Puntland ee dalkaasi Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.